waxaan saaka idin kala hadlayaa isbitaal Martiini waxaan rabaa inaan ka hadlo horta guud ahaan in cudurka uu soo laba kacleeyay sidaan bulshada ula wadaagnay shalay ilaa iyo Khamiistii cudurka waa soo laba kacleeyay waxa waaye isbitaal Martiini dad badan ay imaado oo magaaladan Muqdisho cudurka uu ku haleelay waxaan rabaa inaan idin la wadaago marka waxyaalo badan oo baraha bulshada lagu soo qoray oo aanan run ahayn waxa ka run ah xogta rasmiga ah waxa idin soo jeedinaysa galab walba wasaaradda caafimaadka oo la wadaagayso warbaahinta si joogto ah galab walba بعد العصر شالي 5 مغربك إلا يساك صبحي صلاة لحد أرورنمو اسبتالك وحو قابل لح يطبان بوكان هل قف وحال جاي ICU ده سقال قف وبوكان جيف لح قف مدرين ولا لتليي وحانا نقول إليه قريه هذا si ay isu karantiilaan dadka iska dhowraan talooyin la siiyay iyo dabagal tirada dhimashada marka shalay maqribkii 5 galabnimo ilaa iyo saakay 6 aroornimo tirada qof ee dhimatay waa 5 qof ilaahay oo naxariisto sabir iimaan reerahoodii Allah ka siiyo hal qof wuxuu hore ugu jiray ICU da afarta kale qofna waxay ahaayeen dad bukaan jiif ah oo jiifay isbitaalka sida aad ka fahmaysaan tirada aan idin sheegay ma jirto waxna kama jiraan waa war aan sal lahayn in xalay isbitaalka Martiini ay ku ruux baxday 30 qofood waxaan rabaa marka inaan bulshada u sheego in xogta ugu dambaysa ee caafimaad ee COVID-19 mar walba aad ka sugtaan aad weydiisaan wasaaradda caafimaadka ee aan la dhageysanin waxyaalaha beenta u badan ee baraha bulshada lagu soo qoro dadka sameynaayo warka aanan saxda ahayn bulshada dib ayay u keeni karaan wax faa'iido ah oo ku jirta ma jirto in dadka la sii cabsi geliyo waxaad dareemaysaan oo mar walba ku celcelinaa wacyigelinta in qofka markii uu xanuunsado ama calaamadihi uu dareemo inuu soo raadsado rug caafimaad isbaaritaan lagula tariyo kadib uu daawo raadsado siday xaaladaha kale yihiin dadka in la cabsi geliyo waa khalad qofka in laga sii dheereeyo dad badan oo waxaa jira cudurkii haaya oo aanan isbitaalada tagin dadkaas ihsaan uma sameynayaan dadka beenta faafinaya argagax ay khalkhal ku riday balse waa ka sii fogeynayaan qofkii inuu isbitaal raadsado fadlan aan iska ilaalino wax bulshada wax u dhimaay haddaadan waxba u tareynin waxba ha u dhimin ha faafinin war aan sal iyo raad lahayn ma jirto cid u dhimatay oxygen la'aan oo isbitaal Martiini ku jirta oxygenka waa yimaada meelo badan oo ka kala yimaada marmar ciriiri waa galaa laakiin cid u dhimatay ma jirto marka waxaan ka codsanaynaa dadka walaalaha Soomaaliyeed in ay dhageystaan xogtana ay ka helaan sidii caadada ahaydna aan toos idin la wadaagi doona iyo baraheena bulshada wasaaradda caafimaadka ay kala wadaagaan xogtii ugu dambeysay waa waajib mar walba inaan ku celcelino in la taxadaro in afka la xirto in gacmaha la iska dhaqo in la kala ilaaliyo bulshada meelaha ciriiriga isugu imaanaya qatarteedeeda leedahay ilaahay ha naga haayo waxaan arkaynaa kan inuu ka xoog badan yahay kii hore baaritaanna socdo dibadda loo diray saambalo badan sida loo ogaado bal viruska naftirkiisa waxa cad dadka qubarada ay ku celceliyeen in isu gudbiskiisa uu aad u sahlan yahay marka waxaan ku talinaynaa in la kala dheeraado meelaha ciriiriga in la iska dhowro in nadaafadda iyo gacmo dhaqashada lagu dadaalo iyo tan ugu daran oo ah in qofka markii uu dareemo calaamadaha uusan guriga isku celinin uu taga rug caafimaad si uu u raadsado kaalmo caafimaad